gudida gurmadka caafimaadka ee magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa la tacaaliyay dadka uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka ayaa saaka waxa ay gaadheen deegaano badan oo kamid ah deegaano hoostaga Buuhoodle deegaanada ay maanta gudida gaadheen waxa kamid ah deegaanka soo joogto Horfadhi Ciyaag iyo sidoo kale deegaankaasi Goljono aad looga soo deeriyay xaaladiisa caafimaad dhinaca kale gudidan ayaa deegaanadaasi waxa ay gaarsiiyeen deeq daawo lagu tacaaliyay dadka uu soo ritay cudurka shuban-biyoodka ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gudida caafimaadka ee Buuhoodle Cabdi Fataax iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Buuhoodle Cabdi Farax Cali Cawil iyo qaar kamid ah xubnaha gudidaasi oo ku sugnaa deegaanka marka hore anagu Horfadhi waxaan soo dhaweynaynaa bahda caafimaadka gudiga caafimaadka ee gobolka Cayn sida golaha deegaanka ee gobolka Cayn sida gudoomiyaha dhakhaatiirta dhammaan waftiga nooga yimid magaalada Buuhoodle socodinta indhaynta xaaladaha caafimaad ee dalka jira indhaynaya aad baan soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay in soo dhaweynaa Horfadhi waxa ka jira xanuunkan sida aad la socon xanuunka waddanka dilaacay ku nool ilaa iyo marka gudaheeda horta ilaa 300 oo qoys waa ku nooshahay waxa kale oo jira dad kale oo soo barakacay oo dadkii ay maaragtay meeshan dhulka daaq ugu dambeeyay baahayd dad badan oo hawd ka yimi baa jira dad badan oo xoolihii ka dhamaaday oo gudaha ku soo xarooday baa jira waxa hoos taga ilaa iyo 8 location oo kale oo ay ka mid tahay Goodle oo ay ka mid tahay Jaf oo ay ka mid tahay Qaydar oo ay ka mid tahay Meeyagle oo ay ka mid tahay Maskax Buqle oo ay ka mid tahay Hagogane ilaa iyo Cumar Aji Xasan Sacma Deeqo meesha la yiraahdo xaqso kiiska saddexaad waxa ka horeeyay weel gabadh saaka aan seedii 6 subaxnimo aan ugu tagay xarta oday xalay caqaabay oo maanta iska gacan lagu soo cararay oo la keenay wakiil loo sheegay kan markaan u maaran laakiin filibooyinka wuu sii dhiibay wajifaa waa caburiye iyo wiilka yar oo hadda la keenay libo laakiin magaalada gudaheeda wali wax sidoo kale maana suuqan keenay marka labaadna aad iyo aad mahadsantihiin teamkina noo yimid oo ka yiri Buuhoodle deeqda soo gaadhay Buuhoodle kartay inay qoonto ka soo siiyaan meelaha kale dhibaatada ku jirta ee Goljono hadeerta ugu culays badan tahay aad iyo aad baan ka mahadcelinaa jazakallahu khayr marna waxaan leenahay waa la shukr cala waajib waxawayaan dadkeenni iyo dalkeenni iyo ummadeenni weeyaan ummadeenina qof kastaaba wuxuu hayo iyo waxa uu helo iyo wuxuu haaban kara inuu sadib uga dhigan weeyay marka hore waxaan ahay madaxa caafimaadka ururka bisha cas ee gobolka Soo horta ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahayga boqorka inuu inaga xakameeyo inaga qabto waxaanu xakameyn karno iyo inagu waxaanu awoodeena ku hor istaagi karno midna ma laakiin ayadoo waliba hadeerto qof dhintay oo hadda qof la sii wado hadana waxaanu aad u habi ugu nahay inaan wax fara badan u qabanay afleeyada caafimaadka Goljono dadkan u soo gurmaday hadee ونحن إنتينا المدقرو ديجان وكل شيء نشوفه مشروع مدولي بحدير أيو يمين مدبنا ميل بكيم أنا واحد كان يديجان كبوه هذا كان إلى السعودية دومي يقول هديجان كبوه هذا أنا ولا حنا هيك دومي هكذا أفمال ولا في سمي هذا بوه هذا كنت لازم تيجي ما دام الديجان كبوه هذا ثاني بحاصل وشايعي أهداف يدو عمل كاستباهي لكتير مرحلة السلطين الدراسيين وحنا أود كنا أما طبعها أهاتو أما دقالها أهاتو أما برنامج أهاتو إن أنجارسين سيد الله سبحانه شلي واحد ديجان كبوه وتدك ديار الدواء إن ديار داس ودي هدي أي نقطة مد محن تقولي مالا إسكجحرو ضدكنا هذا هالكم كل من يانا وربحنت أين هذا هين هذا ميد لسيسدو مشهد عن نوشك تنا أي مرة يسطبا وحنا نقول سوا حن عادي أهين هذا ديجان ده نسوس عني ما أنت سيدا سول شوكتو جاج هروفردي كنت بقى حنونكو كدلا وحنا مودا إنه إسصال تري بو هذا حلي تركوبان كسميني بقول يلا بوقف بتهلي اسبتالك تركوبت أنت أنا ودنا بقول لا تنقف بانو كجتكنا مرحلة دي بو هذانا سداس بي وسي مقرنا ساي صعدها وقاشة يوضياشة قبلها يدمان تود السلامية وحنا نكون سلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مركه إلهي بمحله سوكا كان قوبتن واحد كستو كوي ما دنا سمر بوي باهين إلهي بنوسم لنا دد كان حلقة شيفة
tirakoobkooda adagaana siin doona sayidaba haddii ilaahay ka dhigo aniga waxaan kasoo kacitanay magaalada buuhoodle waxaan soo marnay sool joogto hurfadhi iyo ceegaag meesha libowga iminkana waxaan ku sugannahay farjanno goljanno ayaan ku sugannahay sidaa uu doctoorku sheegay waxaa looga baahan yahay hadal yar iyo hawl badan waqti badan ma haysano marka hore dadkan ilaahay waxaan ka baryaynaa intii dhimatay inuu ilaahay naxariisto inta beeshinka ay jiftayna ilaahay inuu caafiyo ummadda Soomaaliyeedna meel kasta ay joogto waxaan leenahay waa inay gurmad degdeg la soo gaaraan dadkan oo baaq waxaan ugu diranaa dad cid kasta oo Soomaaliya oo ay u horeysay dawladda federaalka ee Soomaaliya deeqdii hore ee ay soo dhiibtayna waa u haynaa dadkan waa siinanaa laakiin naguma filo oo baahidu waa gacan gal jira dib looma maydho naguma fila cid kasta oo Soomaaliyeed iyo meel kasta oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay gargaar degdeg dadka la soo deegaanka goljanno ayaa aad lagu soo deerinaya isla markaana waxaa jifa tiro aad u badan oo soo ritay cudurka shuban biyoodka deegaanka goljanno ay gudida caafimaadka saaka gaadheen ayaa dad badan ku dhintay isla markaana dad badan u jifaan cudurka shuban biyoodka Xuseen Xasan Cade warbaahinta dawladda Puntland magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn